maanta waxaan ka hadlaynaa maxaa lagu xakameyn karaa siigeysiga kaas oo dhaqan xun ka ah bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. haddaba muuqaalkan ugama hadlayno dhibaatooyinka laga dhaxli karo siigeysiga, laakiin waxa aan ku eegi doonaa qodobo muhiim ah oo aad ku xakameyn karto haddii dhibaatada siigeysiga ay ku tahay mid kuugu badan. marka hore haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe share garee qaybta hoose waxaad noogu reebi kartaa ra'yigaaga. waxaa jira dhalinyaro badan oo isticmaala qalab ama gacantooda isla markaasina siigeysta si ay minada ama biyaha isaga soo saaraan. dhalinyaradaasi intooda badan waxa ay sheegaan in dhibaatooyin ay la kulmaan, laakiin muuqaalkan mid ka xiga ama muuqaaladeena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa dhibaatooyinka laga dhaxlo siigeysiga. laakiin casharkan ama muuqaalkan kooban waxaan ku eegi doonaa qodobo muhiim ah oo aad ku joojin karto siigeysiga. waxaa jira dad badan oo caado ay u tahay siigeysiga, laakiin arintaasi uma arkaan in dhibaatooyin xagga caafimaadkooda ah ay u leedahay. laakiin dad iska daayay ayaa jira oo iyagu sheegay in maskaxdoodu deganaan ay ka dareemeen. haddaba si aad isaga xakamayso siigeysiga ama dhaqankaasi, marka hore qofku waqtigii uu seexan jiray waa inuu wax ka bedelaa. haddii aad seexan jirtay waqti cayiman oo xilliga habeenkii ah, haddii aad wax ka bedesho waqtigaasi ama maalintii xilliga aad seexato, taas waxay ka caawinaysaa in niyadaada ay ka baxdo siigeysiga. qofka haddii uu ka fogaado marka keligii uu yahay ama cidlo uu joogo in gacantiisa uu ku riixriixo ama uu ku taabto xubintiisa taranka, taas waxay ka caawin kartaa in uu iska joojiyo ama niyadiisa ay ka baxdo siigeysiga. haddii aad awoodo guurso. guurku waa muhiim, isla markaasina waxyaabo badan oo dhaqamo ah oo marka aad keligaa tahay aad samayn jirtay ayuu kaa hor istaagayaa. si aad isaga joojiso dhaqanka xun ee siigeysiga, ku seexo maro sida saraawiisha oo kale. waxay ka caawinayaan in gacantaada si aan ku talagal ahayn ay u dulfoosho xubintaada taranka kadibna dareen uu ku galo. sidoo kale dhaqaatiirta ayaa ammaanaya arrintaasi. laakiin ogow, si aad hurdo raaxa leh u hesho mar walba, waxaa wanaagsan in aad dhar jilicsan aad ku seexato. si aad isaga joojiso dhaqanka xun ee siigeysiga, waa inaad guursataa. haddii aadan awoodin, waa inaad shukaansiga aad badisaa. taas waxa aad kaga mashquulaysaa inaad siigeysato. laakiin dad badan ayaa u arkaya shukaansiga in galmo ay ku salaysan tahay. galmada sharciga ah ee diinteena islaamka ay fasaxday ayaa ah midda keliya ee saxda ah ee dadkuna ay ammaaneen. haddaba si aad isaga joojiso siigeysiga, waa in talooyinkan aan kuu sheegayo sida ay yihiin aad u raacdaa. sidoo kale waxaad ka fogaataa muuqaalada iyo sawirada anshaxa daran iyo weliba websaadyada qaar ee la soo geliyo. haddii qofku uu daawado filimada iyo sawirada anshaxa daran ee galmada ku saabsan, taas waxay ku dhiirigelinaysaa dareenkiisana uu u sheegayaa in uu si la mid ah uu u sameeyo. laakiin si aad u jebiso dhaqankaasi xun, haddii aad ka fogaato daawashada muuqaalada iyo aflaanta kale ee galmada ku saabsan, taas diiniyan xitaa aad bay kugu wanaagsan tahay. ogow, markasta waa wax aad u yar inaad hesho waxa la yidhaahdo pornography, kuwaas oo dhammaantood ah wax aan wanaagsanayn. fariinta halkan ku jirta ayaa ah inaad ka fogaato muuqaalada, sawirada anshaxa daran iyo websaadyada la soo geliyo. inkastoo mararka qaar qofka uusan blog saari karin websaadyada waxyaabaha xunxun ee galmada ku saabsan soo geliya, haddana waxa aad samayn kartaa in aad iyaga oo dhan ka hortagto ama meelaha ay ku jiraan aadan tagin. waxa aad sidoo kale uga hortagi kartaa dhaqankaasi adigoo saaxiib la noqda dad ahlu khayr ah, wanaagsan, isla markaasina aan aqoonin dhaqamadaasi oo dhan. haddii mararka qaar lagaaga sheekeeyo arrimo la xiriira waxyaabaha aad doonayso inaad ka hortagto, taas waxa ay kuugu dhiirigelinaysaa marka keligaa aad tahay inaad dib u soo xasuusato kadibna aad samayso. inaad markasta ka fakarto horumar noloshaada ku saabsan waxa ay diiradda saaraysaa in nolosha dhinac kale aad ka fahanto. waxa ay sidoo kale kuuga caawinaysaa ka go'naansho horumarka nolosha adigoo ku fakeraya guur wanaagsan, isla markaasina qof wanaagsan oo diiniyan sax kuugu ah inaad hesho. qodobka kale ee aad uga hortagi karto dhaqanka xun ee siigeysiga waxay tahay inaad hesho dhaqaatiir iyo dad la taliyaal wanaagsan kuu noqda, kuwaasoo kaa caawiya
in aad nolosha ka fakarto nolosha qofka ee shakhsiyadeed ayay siigeysigu ay saamaysaa taas oo saameyntaasi ka dhalan karta in qofka maskax ahaan iyo niyad ahaanba deganaan aanu ka muuqan sidoo kale haddii ay macquul tahay la kulan dhaqaatiir fiisoterabiye ah iyo weliba dhaqaatiir kale oo psychologistayaal ah ama cilmi nafsiga yaqaana waxay kaa caawin karaan waxyaabo badan oo dareenkaaga ku saabsan waxa ayna kaa reebi karaan dhaqanka xun ee siigeysiga qodobka kale ee aad uga hortagi karto siigeysiga waxay tahay adigoo waqti badan la qaata asxaabtaada dadka inta badan dhaqanka siigeysiga ka cawda ayaa mid ka mid ah waxyaabaha ku qasbaya inay siigeysiga sameeyaan waxay tahay inay dareemaan kelinimo iyo in aanay waxba ahayn marka aad la joogto asxaab badan isla markaasna waqti badan aad la qaadanayso lagama yaabo in aad marna ku mashquusho in dhaqankaasi aad samayso xitaa ku bixi waqti yar asxaabtaada inaad la joogto fursad sii kadibna la sheekayso xitaa markaaad kala maqan tihiin kala hadal online-ka kala sheekayso arrimo ku saabsan bulshada guryaha iyo weliba howlaha kale ee mustaqbalkiina taas waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa inaad bedesho dhaqanka siigeysiga waxaa jira habab kale oo badan oo aad u yareyn karto walwalka iyo weliba inaad dareento inaad keli ah tahay dadka markay kula kulmaan asxaabtooda familkooda iyo saaxiibadooda sida galaaska guryaha iyo xarumaha jiimka waxay yihiin kuwa faraxsan isla markaasina bulsho ahaan aad u xoogan markasta ogow kelinimada ayaa ah waxa walwalka walbahaarka dhaqanka xun ee siigeysiga iyo wax walba oo xun kuu horseedi kara qodobka kale ee kaa caawinaya in aad iska joojiso dhaqanka xun ee siigeysiga waxay tahay inaad samayso exercise badan ama jimicsi badan markaad samaynayso jimicsiga sida orodka dabaasha jiradhiska iyo jiimka qaybihiisa kale ee kala duwan waxay kuwaas oo dhan ay xoojinayaan jirkaaga islamarkaasina jirkaaga waxa uu soo daynayaa dheecaanka la yidhaahdo endorphin kuwaas oo sare u qaadaya dareenka wanaagsan ee jirkaaga dareemidda farxadda badan iyo deganaanshaha jirkaaga waxa ay yareynayaan rabitaanka ah inaad siigeysato dhaqankaasina uu kuugu badnaado marka jirkaaga iyo maskaxdaada farxad iyo deganaan ay ka muuqato marna lagama yaabo inaad ku fakarto in dhaqanka xun ee siigeysiga aad samayso waxa kale ee kaa caawin kara inaad ka guurto ama aad ka guulaysato dhaqanka xun ee siigeysiga waxay tahay inaad hesho koox dad ah oo inta badan aad la cayaarto marka dhaqanka siigeysiga ay kugu tahay qasab waxaa laga yaabaa in dhowr ujeedo ay kugu qasbayso waxaana waxyaabaha kugu qasbaya in siigeysiga qasab ay kugu noqoto ka mid ah xaaladaha caafimaad ee dhimirka ee aan la daaweynin marka qofka uu qabo dhibaatooyin xagga dhimirka ah waxaa mararka qaar qasab ku noqonaysa wax niyadiisa iyo jirkiisaba aan u wanaagsanayn sidoo kale waxyaabaha kale ee qasabka kaaga dhigaya inaad siigeysato waxa ay tahay arrin la xiriirta xiriirka mararka qaar waxa uu horseedi karaa in qofka wax aan wanaagsanayn oo la xiriira galma uu sameeyo waxa uu sidoo kale mararka qaar uu ku fakarayaa in maanta oo dhan uu minadiisa ama shahwadiisa bannaanka uu keeno islamarkaasina uu siigeysto waqti munaasab ah iyo mid aan munaasab ahaynba waxyaabaha kale ee kugu qasbaya inaad samayso siigeysiga waxay tahay arrin la xiriirta xagga galmada sidoo kale poor sexual communication waxa la yidhaahdo ama qofka oo waaya guurka ama xiriirka xagga galmada sidoo kale kala duwanaanta dhaqanka ee muujinaysa galmada ayaa ka mid ah waxyaabaha mararka qaar qofka ku qasbaya in uu siigeysto marka aad fiiriso adduunka dadku waa kala dhaqan islamarkaasina diimuhu ayaa ah waxyaabaha qofka xakameeya isku dhacyada dhaqanka iyo xagga diinta ayaa sidoo kale mararka qaar ku qasbaya qofka in dhaqankaasi xun uu ablaagireeyo ama uu sameeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ay wada garanayaan diinteena suuban ee islaamka kaliya xariga alle uu ogol yahay ayaa ah midka kaliya ee saxda ah si kastaba ha noqotee in aad taageero ka hesho koox dad ah oo aad u aaminsan tahay waxa ay kaa caawin kartaa dadkaasi qaarkood inay kaa joojiyaan caadadaasi helitaanka koox arrimahaasi kaa taageera waxay ku siin kartaa meel ay iyagu u badan yihiin oo wanaag ah inay ku jiidaan marka qofka uu si furan uu uga hadlo caqabadaha horyaalla dadka kale waa ay ka caawin karaan in ay la dareemaan isla markaasina ay ka caawiyaan qofkaasi waxa uu ka caawinayo inay taageero ka siiyaan tani sidoo kale waxay ka yareyn kartaa wax walba oo dareen ama dembi la xiriira oo dhaqan aad ka soo dhigatay ugu dambeyntii haddii aan si kooban u eegno waxyeelada dhaqankan xun ee siigeysiga si kastaba ha noqotee haddii siigeysiga uu kugu yahay qasab joogto iyo mid xoog ah waxa ay arrimahaasi ay kugu keeni karaan kow barar
marka aan ka hadlayno ragga duleelka xubinta taranka marka ay noqoto ciriiri marka qofka uu siigeysanayo taas waxa ay u keeni kartaa barar fudud sidoo kale xanuunka cuncunka maqaarka ayaa ku dhici kara marka dhaqanka siigeysigu uu yahay mid xoog badan waxa ay ku horseedi kartaa jahwareer ama cuncunka maqaarka cuncunkaasi maqaarka badanaa waa mid sahlan oo dhowr maalmood haynaya qofka kadibna ka tegaya siigeysiga dadka qaar waa ay ka xishoodaan waana dembi inaad samayso siigeysiga inta badan baraha bulshada waxaa lagu arkayaa dad badan oo dhalinyaro ah oo ka hadlaya dhibaatooyinka siigeysiga laakiin mowduucan kooban waxa aan uga hadlaynay tallaabooyinka aad qaadi karto si aad siigeysiga isaga yarayso muuqaalada kale ee xiga waxaan kaga hadlaynaa waxa la yiraahdo side effect ama dhibaatooyinka qofka uu ka dhaxli karo siigeysiga fadlan waad ku maasan tahay la socoshada janaalkeena caafimaad si aad ugu xirnaato subscribe share garee qaybta hoose comment noogu reeb